السلام عليكم والعليال. So هاي قد يبدو برف كدحية. Oh my god. ولكن maanta maalin iska wanaagsan. Waxaan tagayaa Walmart. Alaab yar baan soo qaaday. Waan dalbaday online baan ka dalbaday so imika waan soo qaaday alaabta. Inshallah. Let's go. Oh my god. Wallahi maanta ma sha Allah saas u sii qabow maaha. Ma waxaan tagayaa Walmart alaab baan soo qaadayaa raashinkii toddobaadkii hore hadda waxaan ku talagalay intaan Cusub tago oo raashinkii caadigan soo iibiyo laakiin maalimaan wax badan baa isku wada marka shaqadii waqtiga way igu yaraaday so markuu waqtigu soo igu yaryahay waxaan pick up online ma ka dalbadaa marka Walmart waa saakayba actually diyaar ahayd so imika intaan soo qaadaa I wish wallahi intay saa Cusub u sameyn lahayn because Cusub this as I'm pretty sure that badan basa online kadalban lahaa oo markaan alaabta soo qaadan lahaa inta galisid oo dhaxlugeynaysid iyo maxay anyways let's go guys let's go walaalayaal waa ka gurigii waan ku soo noqday shopping alaab badan ma soo iibin waxa yaraan soo iibiyay baan yar tusi horta laba biya keeso biyaan soo qaaday caadiyaan hadda waxaan isticmaalnaa baashan xagan taala breeder la eraado laakiin mooyaan dhadhankii biyihii baa isbedelay I don't know gaatino meeshan degan yahayna markaas waan tar iska ilaaliyaa baamada biyaha baamada because si fiican uma nadiifiyoon so waxaan bilaabnay intaan caagado biyo aan soo iibsano aniguna de maalimahan soomayahay adaa horta ogeyn waxaan sameeyaa soom maalin dhaaf alternate day fasting la eraado videoga xagan soo daawada doonisiinta fahamtiin laakiin intermittent fasting baa la eradaa so waxaan challenge baan wadaa imika waxay noqonaysaa toddobaadkii 6aad ba maanta bilaabanaa jimco kastaba update nii soo dhigaa oo waxaan cuno iyo inta hilibiga dhaca inshallah so nala socda so maalintan biyo soomayahay biyo ma cabaa so taasi daraadeed baa u soo iibsaday biyahan soorta ugu horeysan soo iibiyay waa kalluunkan maalimo baa jira intaan de iska daalan yahay cuntaan karin kareen even as a nutritionist baaladan oo kale waan siyaa inankayga it's not about perfection meesha looma joogo nacaminta qof dadka la judge gareeyo anigu waqtigu maalintii wax badan baan isku wadaa so maalintaan haleeli kareen cunto intaan kariyo kaniba u soo iibiyay inankayga waa kalluun breaded it's fine ingredient kuna de kulay waa laga fiican yahay but it's an option intaan McDonald's waxaan soo iibin lahaa gurigan ku haystaa roti furan inankaygaan soo iibiyey kana waa salad waxaan ii sheegay dad doonaysa inta aragtiin waxaan doonayaa intaan ii duubo video aan intusiyo nuuc si salaadka u cuni kartid nacam so anyways so salad baan soo iibsaday kana waxa weeyaan tortilla oo hadda saa u aragtiin waa keto friendly so hadda keto la socotid waa iska cuni kartaa Cusub baa caadiyan ka soo iibsadaa bac weyn but maanta Cusub lama tegin Walmart bay hay'ata laba xambadood baan soo qaaday kana waa laabteedii aniga kana waxa weeyaan salad dressing oo de saladkan ku darsado maxay kalay kani waa baad dalbaday maalin hore mooyaan waxay kartoonka intaa la igu soo riday but oh my god way u khaldameen inna lillahi wa inna ilayhi so annoying why don't I know anu baalka iskama leeyihi waxa kale baan tusi intaan waan ku noqdaa because dhari baan soo iibsaday dharigii intii siin lahayn ba wax kale siiyeen anyways kana waxa weeyaan cream aan wajiga u soo iibsaday oo baalku raxsha $5 bay ahayd caanahan waa caanaha cabno waa almond milk caana caadiya gurigan lama cabo because caanuhu inankayga eczema buu keenaa anigana wajigaygu casaan ka dhigaa so saddex ma soo qaatay coffee-gan ku darsadaa inankayga de awal u cabi jiray laakiin ma cabay
بس بورشكيسي waxaa baan ku daraa kan waxa weeyaan hot sauce jam kana waa ketchup kullaba ketchupka you know wax wanaagsan ma aha laakiin kana waa bilaa sonkor inankayga I think daycare ka baray but markastaba ketchup burada ketchup so kii bilaa sonkorta u soo iibiyay tufaax iyo tamaad qasaac oo laba xabadood I think that's it nade wax aniga tusay ma bajirey waa lovely waa sharaabka waa biyaha gaaska leh that's it guys waa ma class for shopping key alaabta maan kala xiraanay shopping haul alaabada maan soo iibiyay ada Instagram ila soo norta Instagram ila socda maalin kasta waxa wax baan soo dhigaa laakiin office-kayga dusha baan ka shaqeynaa sharaxaya so alaabta office-kayga soo iibiyay guriga baan tusi doonaa and waxaan ku talagalay intaan bishan February dhamaadkayga ka hor aan dhameeyo office-kayga so inshallah videogaas markii doontiin inshallah walaalayaal waxaan furanaa alaabtan dalbaday office-kayga so kuwan horta office-kayga aan soo iibiyay kani waa xawayaan dibaalada warqadaha ku gurasay oo kani actually waxaan ka soo iibsaday Dollarama so laba xabadood oo Dollarama alaabta badanka waa Dollarama IKEA iyo Amazon kana waa Amazon furana waxaan soo iibsaday kani maxaa la yiraahdaa salt pepper marmar baa Amazon ku iibsadaa xawaashka kana waa Italian seasoning I think kani waa baalkii pancake aan dubigay yes so inshallah kani waa nitusi doonaa office-kayga plant baan soo iibiyay geedweyn baan soo iibiyay oo baashan sara u kicinaya baka baal baan hoos dhigi doonaa so kani waxaan ku jira so kani waxaan baal aan soo iibiyay office-kayga oo lugta dul dhigasa because markaan shaqeynayo oo de computer-ka hor fadhiyo saacado badan lugaha yar xanuuna gabar yar oo gaaban baan yahay so kani waan soo iibiyay very soft Amazon behead so lugta dul dhigasa and very comfortable so kani aan soo iibiyay san oo kale waa sirta xaggan so that's that alaabta Amazon baan dhameynana alaabta Amazon baan dhameynana markaana waxaan furi doonaa IKEA oh no actually this kani waa IKEA actually kani waa intaan dhisaa maantaan dhisi actually حويان بالون سويبي office كيغا دي alaabtan waa office kayga weeyaan oo alaabtan saa ugu guraya oo waa bas sirtiisa ana ku saaraya waa kan sirtiisa alaabtan ku guraya because business kayga dee alaabta markay dadku iga dalbadaan saan waxaan u baahan yahay inta meeshan ku soo guro wax oo dhan aan u baahan yahay marka saaba u kala nadaamiya so kaniga swiibsaday IKEA waxaan u jeclahay waa raqiis alaabtooda malaha kana dhuuqaa $30 mashruum iyo $30 alaabta kalena kana waa daah baa office-kayga bedelayaa so daah cadaan aan u soo iibiyay ka sharaxaada office-kayga waxaan ka dhigaa sida gurigayga de waa wala cadaan iyo madow iyo akhtar kana waa 12 aan ka soo iibsaday IKEA nafteeda aan soo iibsaday so 12 oh labadan xabadood waa godol inankayga sariirtiisa $7 guys $7 $7 oo mehed so IKEA is the best place waa saddex kani waxa ku dhex jira laba xabadood kana xabad so inankayga aan soo iibiyay sariirtiisa
kana waa sharaxaad office-kayga saniga laha waa cadaan iyo akhtar oo sharaxaadan ma cover baan dhisay so coverkaa baan kolleyba dhigi doonaa waa kuwan geedadkan waa kuwa gurigayga yaala office-kaygana waan soo iibiyey because saniga leeyahay dee waa akhtar iyo cadaan designka office-ka kana waa baaliro sharaxaada isna coverka aan dul dhigi doono maxay kale midi baan soo iibiyey kana waa ka sharaxaad isna akhtar isna office-kayga aan dhigi doono malaha miiskayga meeshaan ku shaqeeyo maxay kale baalkan YouTube baan ka arkaa markaste avocadoga extra xaga waa kasana xaga mantusay altasir khudradda markaa ama xawaashka markaa jartiin intuu xumaani lahaa xawaashku baalkan baa saa dul dhigaysaa avocadoga matalan markaa nus aa ka cuntid nusa kale waa dul dhigaysaa ma xumaanayo $3 bay ahayd waan soo qaaday kana waa baaliro telefoonkaygaan ku dhigi karaa yo dahabi so office-kayga sharaxaad office-kayga waa dahabi yar adu waa sida gurigayga dee fadhigayga waa dahabi yar cadaan badan cadaan akhtar iyo madow so saabaan kani baan saa ugu hoos dhigi doonaa so pretty masha allah maxay kala haray kuwan labadan waxaan kasoo iibsaday linen chest so kana bas waa mara yar wajiga lagu engajiyo kana waa cadar yar oo linen chest baan kasoo iibsado udgoona nacam cadar jirka kii laisku shubayo kala urayaa udgoon anigu waxaan u fiirsaday candleka ama faanuuska u yidhibaa marka kani bas office-kaygaan usoo iibiyey intaan ku udgooneeyo meel udgoon dee meesha ku shaqeynaysa hadday udgoon tahay dee waa wax fiican so cadarkan yar baan usoo iibiyey it's so nice cadar buu xasuusinaya laakiin magacii baan keeni karin laakiin yes alaabta kalena xaggaa taalana waan intusii doonaa islandkayga miiskayga islandkayga wax baan usoo iibiyey kaana waan intusii doonaa bas halkaas coverkana maalin dhaweed baan dhisay Instagram aad la socotiin oo arki doontiin laakiin gurigayga wax baan beddelay malaha update-na waan isiin doonaa insha Allah waa kan geedkan maxagan soo dhigay mid kale xagan yaali jira oo office-kayga dushaan korsiiyey bangay laakiin kani waa xagan u soo iibiyey I like it really nice waa green white guriga inta kale u eegahay so waa kaas decor update so wax badan ima sii tusay office-ka because videogii gooni uu nii soo socdaa laakiin waa ka baalkii madoobaa saabaan u hoos dhigay geedkana waa Amazon baan ka iibsaday waa dee office-kaygu de waa maqsin aduu saa dee taygu uma soo galo marka waxaan doonay intaa ka dhigo meel wanaagsan oo de aan ku shaqayn karo so waa kaas geedka yar baan usoo iibiyey it's very nice office renovationka videogu nii soo socdaa so kani waan soo iibiyey iyo waa kana baalkii aniga lahaa waan dhisay so waa baal aad riixi kartid oo meel kasta saa u wadi kartid badanku dadku saa waxay u isticmaalaan dad business leedahay alaabada u baahantid baa dhigan kartaa ama maxaa la yiraahdaa kaniifka ama musqusha baa dadku badanku u soo iibiyaan oo alaabta de saa u dhigtaan xagan bas waxaan dhigaa on de wixii oo dhan markaa alaab laga iibsado shipping labelka kani waa thank you card asli butiga dayga dalbatay kole waa heshay thank you card kan iyo wixii oo dhan aan u baahnaa stickerkii xagan alaab yaro dee waa kan baasha baan ku xira kartoonka kana waa alaabo yaro kale kana waxaan ku dirayey so dayga iibsateen kole waa aragteen maxan but yeah waa baal yaro very convenient سواء كسر حاجة بنكسر قبلنا فيديو وحنا جنينتني عجبيسو إن شاء الله لايك يا سبسكرايب كيجي لوبينا هذا كورس بتهين channel كيجا جمعة هنا إن شاء الله وحن نيسو دقيقة هذا الفيديو جي ساعات هسيرة إن شاء الله